wuxuu bilaabay xidiga reer Masar ee dhaawaca ah exercise gaar u ah isaga oo sababtoo ay tahay dhaawacii ka soo gaaray Champions League kadib markay iskaleen Sergio Ramos ciyaartii finalka ahayd. exercise-kaas uu ku qaatay caasimadda Shishania ee loo yaqaan Grosley, taasoo tartanka ama exercise-ka jamaaciga ay tiimku ay wada qaataan uu ka hadhay, taasoo shaki badan ka taagan yahay inuu la kulmi doono ama ciyaartaasi u soo geli doono bilowga ah ee Uruguay ay la ciyaari doonaan maalinta Jimcaha Yuunyo 12 ee 2018. haddaba Mohamed Salah oo ah xidiga Afrika sanadku markuu ahaa 2017 iyo Premier League oo 2017 xidigiisii uu qaatay markaana kadib dhaawacaas soo gaaray. Mohamed Salah ayaa keenay inuu shaki uu galo ciyaarta iftitaaxa ee furista ah ee uu ka ciyaari doonaan Uruguay inuu ka qayb galayay in kale taasoo garabku iyo feedhu halka iska galaan uu ka dhaawamay. Mohamed Salah tadriibkii ugu horeeyay kama qayb galin, si kasta ha ahaatee tadriibkan u dambeeyay ay galeen imika ayaa keligii iyo il gaar ahaaneed iyo dhakhtarrada ay ku hayeen oo ay eegayeen kolba xaaladiisa caafimaad, halka xulka intiisa kale ay tababaradii caadiga ahaa ay ku qaateen. taas daawadayaal fara badan iyo tarabuun fara badan halkaas isku yimaadeen oo reer Chechnya way doonayaan xidigooda Mohamed Salah inay ka war helaan, waxaana hogaaminaya taageerayaashaas Ramadan Jaribov, taasoo dhakhtarku xulku cadeeyay inuu si gaar ahaaneed Mohamed Salah tababaradiisa uu qaadan doono. waxa kale uu cadeeyay haddii caafimaadkiisu saasi ahaado inuu sii kordhin doono tababaradiisa uu qaadanayo, taasoo mar walba dhaawaca noocaasi ee soo gaadha ciyaartooygu aan muddada caafimaadka ama uu ka fadhiisan karayo ciyaaraha ay tahay 3 wiig. dhaawaca noocaasi waana tii ugu horeysay muddo ay Masar ka qayb gasho koobka adduunka muddo ah 28 sano, taasoo ay tahay markii saddexaad taariikhda laga bilaabo koobka adduunka inta ka qayb gashay 1934 ilaa 1990. dhanka kalena gruubka ay isku Masar ay ku jirto waxa kamid ah Uruguay iyo Ruushka iyo Sacuudigaba. si kastaba ha ahaatee Mohamed Salah macnawi ahaan iyo nafsi ahaanba waa u diyaar koobka adduunka, laakiin caafimaadkiisa ay ku xidhantay mar walba inuu ka qayb gali karayo ciyaartaas iyo ciyaaraha kaleba. waqtigu baa naga xiga. su'aal la weydiiyay tababaraha ciyaarta Uruguay inuu ka qayb gali karayo Mohamed Salah iyo in kale, wuxuu ku jawaabay waxay ku xidhantay caafimaadkiisa Mohamed Salah, laakiin ma cadeyn karayno maalmaha ka hor inuu ciyaari karayo iyo in kale. keligii oo kaliya maaha inta caafimaadkiisa ka warhaysa ee waxa weeye ilaa naadiga Liverpool ayaa isna dhinaciisa ka wada xaaladda caafimaad ee Mohamed Salah. mana dhici karayso in barakshalan ku saarno ciyaartooyga inuu ka qayb galo ciyaaraha. haddaba daawade tii waxa soo caafimaadee ka warhayaan iyo dadkaas oo dhan xaaladiisa doonaya inay ogaadaan, adigu daawade su'aasha ku hayna waxa weeye ama ra'yigaad ka dhiibi karaysa ma ka qayb gali karaya Mohamed Salah ciyaarta koobaad ay la ciyaarayaan Uruguay? ra'yigaaga soo ka dhiibanayso halka kominka lagu bixiyo ee channelka.